إيساي ماهينو كنيان كالسنة كفر قلبت كالكيدي واياي كنيان كالسنة كفر قلبت كالكيدي واياي كنيان كالسنة كفر قلبت كالكيدي واياي أركلكي قلمدوك واياي بنت إسكدي نبي ورنتي واكلكي إسقلافكي قلمدوك سند لما جوغي كران يكون إسقلافينا كورر warwiliga kar iyoonay kabad iska tolo jirtaan koonfur galbeed iyoonay galmudugna ma iska hariirideen niman yaw galmudug iyo koonfur galbeed hadday kala fog yihiin oo in la isku kaba aadiidayso maxaa garoowe iyo baydhabo isku kabay waa tashriif iyo wasiirkiisa Cabdullaahi Sheekh Xasan Baay fadhiyaan war Hirshabeelle iyo galmudug mooshinka iyo khilaafka bacaad u yahay wax kale ma haysan gaawowgin lagu Jubbaland khilaaf kama dhicin kollaba maxaad sheegi adina saasaadka waaga number 6 ilaa man yeeyin ma aha gaxaaba la isugu khilaafa biyaha laga cabaahay dacdadii xaraar iyo falkii lagu xajiimoodo inta ay xaqiijinayaan xananka kii daadshay xumaantii dhacdaba kuwa kugu xisaabayo meel kastaad xubeeriya ku tahay lama xushmeeyaan marka adeer Soomaalidu waa isku mid waxba yaan la iskala saarin aryaa inta isku mid ka taamidna hadda u dhala midna hadda u dhimaahay Soomaalidu hadday isku mid tahay maxaa 4.5 looga dhigay war 4.5 waa xisaab afar iyo bar ah sida loo fasirtay ma horta shanta Soomaaliyeed ma tahay yaa nuski kale aawahe war 4.5 kan isin fasiray dhagansada niman oolole wiin iyoonay niman aataysangu naw shalshada ka jab shan Soomaaliyeed goorma noogu dambeysay annagu waa hore ayaabal ka taqaafinay niman yoo waxa la yiri qofkii dalal islaameed anfaca kiisana iloobay isma oga dantiisii asagu waana eberkiis war heestaas ma hayniyo nintiisiiba daayacay kan kale ee dugsanaya ani igala doqonsan bay ahayd arsaas bahayna waxay ahayd ilaan doqoni jifka ma kaade damankay marmarisa war waxay ahaydna maaha saase ubixi baxayay sawdigan abaarsaday war codkayaan laga cayuubin ninka cusbaha la siiyo ubixi baxayay soo aniga abaarsaday madii leeysanka dheegasan aqoonsiya waayeen la jeedo gowdhan ilaahay abaar nugu marido war ra'iisul wasaare Khayre guddi ayuu soo saaray 4 wasiir ka kooban waxaana la sheegay khilaafka maamul goboleedyada ay kala hadlayaan aqalka sare war maamul goboleedyadii waxay ku jirsan yihiin garoowe ma iyaga lala hadlo ma laga cabsanaya mase waa laga xishoonaya mase waa la xaqiraya war beenta naga dhaaf madaxweynaha Hirshabeelle waare kama qayb galin shirkaas anigu maba aaminsanay in maamul goboleedyada lala hadlo sababtoo ah wuxuu yiri dawladu maba jirto markii ninka maanta dawladu ma jirto taagan maxaba laga hadlaay warkaas waa naga fakaday waana la daba joogaa naga taa hal laga daba yimaado ciyaaw warshala waa qarabaynaaya la daba cararay maantana dawladu ma jirto miyaa la daba cararaa waayaabay waan naqaanaa waxa idinka guuxaya federaalka diidantii mana sheegi kartaan yaa federaalku fildarramiya xal lagu diidaa maya waa fidno wareeda war ma haysaane gobolka Sool deegaan la yiraahdo dhumayga dad badan ayaa ku dhumay haddaan ma la soo helay warka iga dhex geline dad badan ayaa ku dhintay dagaal laba beelood oo walaalo ku dhex maray marka gabdho badan baa halkaas asay ku qaadee Allah kala badbaadiyo dagaal walba dhaca dumarka ayaa asay ku qaada war adeer dagaalka Sool ka socda Soomaaliland baa u gurmanaysa oo daba cararaysa marka idinka waxba idinkaba gelinay tiina u tashada warnamiya oo dog ambar warjaan warayinka bahi sababtoo baylow may baa la ka furay xafiiska ururka goroobada koonfur galbeed shansan i barasha gayeen intaas may baan diiban galsin laaray lama kun i afar bawal i halaago aniga afar garoob halaygu qoro anaa rabe ciwaankiisa ma haysa xafiiskaas warada Sacuudiga maxaa u geyn weydeen sidii kuwii hore war maraga la waaye shaqfir ha cunin gabdhaha Soomaaliyeed war madaxweynaha Turkiga maanta baarlamaankiisa uu la hadlay waxa uu yiri dilka wariyaha Sacuudiga muddo ayaa la qorsheynayay yaa hal qof dilkii muddo laga qorsheeyay kunan hal maalin gudaheer dili jirnay war ma Sacuudigu masadana ay rabbi ugu baryaysaa miyaanu shahaadanin warka anaga dhex gelinayna nimanyo waxa uu yiri dadka dilka fuliyay dawladda Sacuudiga ayaa soo dirtay saraakiil ayayna haayeen hal diyaarad ayna ku yimideen waxayna dhex degeen qonsuliyadda iyada ayayna ku dhex dileen wariyaha war wuxuu yiri madaxweynaha Turkigu haddaysan Sacuudigu sidaa dilka u fulin maxaa saraakiisha nabad sugidda dalkeena keenay
maxaase maydkii wariyaha boorso loogu qaaday inta la jarjaray hilibkiisa yaa hilibka haddii la jarjaray ma la karsha intaase lagu cunay war waa yaaba sacuudiga waraabagadow ma u naqday war sacuudiga iyo shabaab xaggee u kala wadin لحما فريشا في جمال الكشوق صنعوه في قنصلية السعودية في اسطنبول ma dhow sida ma aha kalkii kooso noon torobaare fay diritaare noon bambina yarow ayay war maya waxay ahayd kaarajuuju ku sibeena nin sanaaltano waryasaas mahayne lidilow lugogooyow boorsilikridow baadisha lakariyow la'aama wahayti maya waxay ahayd garaasiyo haf international bansonic war nimayow dad waaweynaad tihiin xishooda waxaan war maahane ee dawladda iyo maamul goboleedyadu hadday heshiin waayaan maxaa dhacaya walidhii oo kiin sheege dadkan taliya laari hooban talii wayta reerkan taliya laari hooban talii waytona naftan taliiso ilan bil naftiisan taliisadaniyow adar anagu maamul goboleedyadana sheegaysaan kama mid yihiin yaa kugu dirqaaya war waxaa magaalada manchester tegey waa cristiano ronaldo oo caawa yuventus u ciyaaraya ninkan weyne intaa leeg naga hor wada saa u hadlaya war waxaa muqdisho lagu dilay waa amiir ku-xigeenkii daacish ee soomaaliya u qaabilsanaa war wala la dili wariyuu war wariye maahane waa amiir daacishee naga ar ma ahane waa heesaayo naga ta horta maxaa loo dilay ku-xigeenkiisaa dilay maha ii banneeyo uga jeeda indhaha ka soo haye